maanta dhinacii Israa'iil iyo wafdigii Somaliland tagay iyo jawaabtii dawladda laga sugayay waxa cajiiba iyadoo midnimo ummadda Soomaaliyeed in loo istaago la qorsheynay ayaa waxa dhacay fashil iyo ceeb waqti badan ma hayo muuqaalka share gareeyo waqti badan ma hayo muuqaalka la share gareeyo waxaan maraynaa meeshii ugu dambeysay Soomaaliya muuqaalka share gareeyo live ku koobnaan doona waxaan isku dayi doonaa bal wax yar oo kooban ceebta dhacday inaan kula wadaago qof walba ha share gareeyo muuqaalka wafdi ballaaran oo dawladda Israa'iil ka socda ayaa tagay Somaliland wafdigii waxaan islahaa bal dawladdii faani jirtay ee dhihi jirtay hawada Soomaaliya xukunaa hawada Soomaaliya lama soo geli karo hawada Soomaaliya lama soo geli karo waxaan islahaa bal ugu yaraan waxbay ka qabanaysaa markay arkeen Israa'iil soo socota dawladdii Soomaaliya shib wax dhaqdhaqaaq ma jiro wala aamusay wafdigii waa yimid reer Somaliland oo salaamaya si weyn ayaa loogu soo dhaweeyay soo dhaweyntii intii ay socotay waxaan islahaa bal ugu yaraan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud wax un dhaqdhaqaaqa ayay samayn doontaa shib wala aamusay إلا وفد إسرائيل وسومالان كبحي دولة حسن شيخ وعمسلين مركو وفد بحي وماشو ربك جاري أيا ورقة الصوص علي انتو جوبي وفد هرقيسي لا يبربرة مدحونا حسن شيخ دولة دي سواء عمسلين هرتب بلوا فشل ككوات فشل كلابات ايضا مدح بناني يمدن ما لغشة كينيو ayaa caasimada Soomaaliya warbal meeshan ku yaaban fadhiya muuqaalka sheergareey muuqaalka sheergareey ayadoo midnimo iyo madax banaani laga sheekaynayo ayaa Muqdisho caruur haween iyo aabayaal guri laga boobaya 10 qofood ah dhimatay caasimada Soomaaliya maxaa loo dilay gurigii ay deganaayeen ayaa laga boobayay bal ilaahan idinku dhaariyo anagu waxaan ka sheekaynaynaa waxaan ka sheekaynaynaa madax banaani iyo Soomaaliya Soomaali baale iyo ma aqbalayno aqoonsi Yuhuuddu ay siiso Somaliland iyo war magaaladii Muqdisho ayaa la isku dilayaa guri la isku dilayaa bal Soomaaliya in yar muuqaalka shargareeya horta dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadduu madaxweynuhu yahay qof aqli leh horta waa is-casilaya weligay fashilkan oo kala maaray nolosha intaan noolaa intaan siyaasad ka hadlayay weligay fashilkan oo kala dawladay ku dhacday noloshayda waa idinayd warbal adduunyadan arkay waxaa la isku ogaa raalli ahada reer Somaliland aqoonsigiisu waa video call kaliya lagu aqoonsaday wax dhaqdhaqaaqa ma jiro haye وزيرك الرماه الدبادة متقانا ميزانك ولايه متقانا وزيرك الرماه الدبادة متقانا ميزانك ولايه بل أري وزيرك الرماه الدبادة مجا إيا ميزانك ولايه متقانا حبايا بين لسكو شيء وحبايا بين لسكو شيء ما أنت وفدك Somaliland تجي وحو أها وفد مج إيا ميزان وحين كتمد فشلك دولتنimo ee Soomaaliya waxay ku timid fashilka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waana ku sheegaya sideedaba dawladnimada haddaad jeebka gashato oo tiraado aniga ma ahane qof kale oo aan kala tashanayo male oo aad u qaadato dawladnimadu inay tahay xaafad ku taala magaalada Muqdisho ceebtan oo kale inay imaanayso way noo muuqatay fashilkan oo kale inay imaanayso way noo muuqatay dawladnimadii waxa laga dhigtay wax ku jira jeebka Xasan Sheekh jeebka Axmed Macalin Fiqi loo joojin maayo laga yeeli maayo cidna kala tashan mayno maanta waxaan maraysaa phase 2 saddex waji waarta aqoonsiga barta اعترافك waa saddex waji waay phase 1 phase 2 iyo phase 3 waay wajigii koowaad
يوجي لبعض وايمانت وجي سدحد بس عندنا محاكو طلع ورحصل شيخ اساسي ورميش وحكم اساسي والله وبالله وتالله مدحوينه ابد اقول لي تي وليب التاريخ حمدتي وقدرني اياد ما انت صوبتي قادت وافشلنتي بل عبت الأعداء كمرك صوماليين وقت بدل ما هي موقعك الشرقية عبت الأعداء إسرائيل مكي دقاقضي أو ورقة الصوص عليه حتى وفد إسرائيل أو سومالان جو ورقة والسو ساروه ما يشيك التصوت وفد إسرائيل أنت وجوغي قدها السوماليلان ورقة والسو ساروه مركوب بحي وفد إسرائيل أو ورقة الصوص عليه دولة الفدرالية الصومالية waxay ugu baaqaysaa dowladda Israa'iil inay ka digtoonaato faragelinta madax banaanida war maxaad u hadli weyseen mid kale annaga sirdoonkeena walaalayaal suuqa bakaara muu ka shaqeeyaa aw sirdoonkeena war ma sirdoonka Soomaaliya ma wuxuu ka shaqeeyaa xamar kaliya ma ogaan weyseen wafdigan Israa'iil sidoo kale hore ma ogaan weydeen aqoonsigii ra'iisul wasaaraha bal arag sirdoonka Soomaaliya tabartiisu intay dhantahay arag وروا الدولة حافظ كتلي سواي والله وزارة أرماد دبد محيق بنيس والهوذي إنه ميانا هين هو الله كنترولي ميانا هين مس عروت يا هوين كلو جميستان الله إله عيب عطاد الله عيب بالدولة دي ما شايرينا بالدولة دي ما شايرينا ورما عيب عطيما فيري سردون كاجي سوق بكارها مطعف وزارة أرماد دبد وحي كشقيسا دقموين كقبل كبرادر ورس عزل حسنو والله اسعزل والله معارض ما إجماع والله معارض ما إجماع صوماليا وحد دكتيميل وليد حتى أين نقال ما أنتو حان إصلاحها مضح بناني وحد عليك دون تاورغت وزارة أرمح دبدا وحي كورتكتي ديار دي ودي وفدقة دولة إسرائيلية وزيرك أرمح دبدا أبان دون تامبو انتو وزيرك أرمح دبدا الجوغي gudaha Soomaaliland hal qof wada shawal leh markay baxda warqad dheer la soo diray dawladda Soomaaliya waxay cambaaraynaysaa war masuuqi bakaaraha meel aanan ahayn dawladnimada kama jirtay war iscasila waxaan halkan tacsiin uga dirayaa qoysas Soomaaliyeed oo magaca Soomaaliyeed lagu dhibaatay daynile inta dhimata Allahu naxariisto inta dhaawacantana Allah caafiyo annagu waxaan ka hadlaynaa wasiirka arrimaha dibadda يهود يهرجيسا كشكينا ناي مجالة مقدشو بالبابا كسر دت كيبا جوري جود اللي جود ليه حتى من حبنا نيد الرجال النساء محيطة ورانا نقول حن الصلاة أضاق الله فريح ما حبنا نيد الله فريح حن الصلاة الله هيك الله ورميشان دولة دي كم جت ورميشان دولة دي كم جت ما الدولة ما حبنا ني يدو لجوسي جدو حافظها مقدشو جوريها كنايس وريا إلهي يقال وريا الصوماليان والله نصيب درها كل هذا والله نصيب درها هذا ورمدحوينو سعسي والله وبالله وطلع لبع على مضوضه هلسة يا صومالي هيسد وإلهي يوجه هو بنتلان سياسة هو بنتلان مدح بنانيد هدي صومالي لان فيس 3 أدو فيس 1 إيه فيس 2 وصوت ميسن فيس 3 هدي صومالي لان أدو والله وبالله وحلا جماعة قبكر يا نوب يا وحكي قبكر مرك له سلام ورا والله عباد والله عباد وحن رأى مركا شعب كي شرفت عليه يكون حرن فيسبوك جبريتك عبد الله بلوان أنا قف فكران لا يحي أنا قف أركتيان لا يحي أنا قف رمتن دي الشيء مدحوين حسن الشيخ قرني مضي أنكو آمني وكدغي قرن وكلا دغالمو سعيدني احمد مدوبي قرنمدي Soomaali wuxuu ka dhigay inuu sacيدني احمد su'aal ay weydiinaya una qabataynta gobolka gada la saaray oo hargeysa aan saari karin maxay tahay ii sheeg una qabataynta hawada gobolka gada waa la saari karay way loo saari way hargeysa ii sheeg maxay tahay sabab احمد مدوبي una qabatay waa la saari karaa laakiin hargeysa lama saari karo وrbal fiiriyo waxay umada Soomaaliyeed loo imaanayaan haddaadan baasaboorka Soomaaliga wada
waxaad ku qasban tahay inaad fiisa soo dalbato wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ma fiiso ka codsaday xasan sheekh dowladnimo ma taqaanaan war dowladnimo ma taqaanaan hal su'aal kaliya jawaabteeda halaysiiyo cunaqabatayntan gada la saaray ee hawada Soomaaliya laga xanimay maxaa loo saari waayay Hargeysa ma awoodaan war haddaadan awoodina iska casila xilka bal tusaale idinku filan waaye ka warrama iyadoo yuhuuddii ay timid Hargeysa dadkii caasimadda ku dhaqnaa gurigii ay deganaayeen haddii la boobayo ka warrama 10 qofoodaa ku dhimatay Muqdisho 10 yaa dilay askari dowladda ka tirsan waxaa loo dilay boos uu xasan sheekh dhacayo bal ilaahay idinku dhaariyo arag boos madaxweyne xasan sheekh uu dhacayo ayaa 10 qofood oo Soomaali ah loogu dilay magaalada Muqdisho maxay tahay Soomaalinimada sheegaysaa dowladnimada sheegaysaa maxay tahay war waa ceebaysanahay war ceebaa dhacday runtan idin sheegayaa fadeexadan oo kale wali dowlad Soomaaliyeed kuma dhicin anigu munaafiq ma ahay runtan sheegaa runta munaafiq ma ahay runtan sheegaa weligeeyo kale ceebtan oo kale dowladii ku dhacda lama arag madaxweyne xasan sheekh midnimo ma danaynaya maya sabab maamulkii aan anigu halganka dheer u galay walaalahay SSC qaatumo haddana waqooyi bari loo bixiyay midka u tegi waaya laascaanood ee diiday caleemasaarka firdhiye ma rajaad ka sugaysaan ii sheega ninka diiday inuu caleemasaarka firdhiye tago miyaad ka sugaysaan inuu midnimo Soomaaliyeed difaaco isaga dhanba waxaa ka badan war wallahi baan idin sheegi maayo dowladda Soomaaliya oo dhan waxaa ka badan xaafadaha Muqdisho ma ogaba Soomaaliya inay gobolka banaadir kaliya ahayn ma oga waxay ku leeyihiin soo Muqdisho ma adan arkin nabadda ka jirta nabadda horumarka ka jira war Soomaaliya Muqdisho kaliya ma hadduu xasan sheekh damiir leeyahay dadka jecel ee degan gobolka Soolo u tagi lahaa hadduu xasan sheekh midnimo yaqaano laascaanoodu caleemasaarka aadi lahaa